magacayga waxa la dhahaa Daahir Kaamil Cabdi waxaan ahay gaashaanle dhexe taliyaha ridmintiga labaad ee brigade shanaad baan ahay fadhigiisu yahay degmada Awbar marka inta markaan ka gudbo dhacdadii meesha ka dhacday ma garanaysaa shilkii hadda ka dhacay halkan yaa raba si kooban in uga warbixiyo maadaama xogtiisa ka wada dheegsanahay waxa weeye marka dhacdada gaadhigu kulli xogtiisa ciidanku way hayeen ciidanku guud ahaan wuxuu u taagan yahay ama dawladdu ama shacabku badee maadaama ka soo dhaxbay shacabka ay dawladdu u tala gashay waa inuu amniga shacabka soo iyo bulshada marka sidaa darteed xuduudada iyo meelaha gudaha buu ka shaqeeyaa isla hawlgalkii dhaxdiisa ciidanku ku jiray waxaa xog oo uu helay inuu gaari soo socdo soo dhaafay ma garanaysaa qoladan aan dariska nahay wada shaqeynta leenahay kaylaagii iyo meesha boosashkeeda lagu habeynayeen uu soo dhaafay oo ka leexday xogta xaggaas ka timid marka saasay gidhaashka ciidanku iyo hawlsha ku sameeyeen gaarigii marka ciidanka wala kulmeen marka gaarigii oo waxba wadin oo iskaba laga yaabo inuu maran yahay hadii uu wadadii aad fadhiday ku sugaysay uu ka leexday shaki baa ku galay adigu bilaadeen baa taadna waxa isla deegaanka ilaali sidaa darteed gaarigii yuu ciidankii qadanay irftaag buu sii galay askari adigu kamid ah yaa ciidankii markii la kulmeen eegana mar labaad buu baasay marka saasay iyo xabadu yuu u riday ahayd 3 mil xabadu ku riday waa wax naga dhacay oo nagu dhacay anagu cid ku daalmani waxaan u dhimanayna waa shacabka iyaga waan ka xunnahay geeri naga dhacday oo ma garanaysaa anagu intay aan dhimanay haddana anagu aan geysanay bay noqotay oo nabar ma garanaysaa aan ugu talagelin macnaha marka aanu ciidanku arintaas wiilashii dhintay Allahu naxariisto waan ka xunnahay kun goor baan ka xunnahay nin waa garanaysaa wuxuu wax ku ahaadii marka ku faraxsan ma jirayo marka ayadoo laga yaabo waxba inaan ahayn haddana kulli saacada gaadhay adoo abligi deegaankiisu isla hadii gaarigaas uu ku soo dhaafo oo laga yaabo askariga marka noocaas kiina waan ka talaabo qaadnaa waan xidhno sharciyan geynay muhiimadda waxay ahayd hadii uu ka soo deyn lahaa kulli wuu xidhmi lahaa oo gaari sidaa yeelay oo uu soo daayayna wuu xidhmi lahaa waxaan marka warbixin kooban haddaan ku socdo bulshadan ma garanaysaa iyo shacabka iyaga aan lagu sheegaynaa inuu annaga wiilkaanagii ahaa kuwan dhintay wiilashaanadii ay ahaayeen waxaana ku talagalayn inuuna ahayn wax qadar rabbi inay ahayd ma garanaysaa iyagiina Allahu naxariisto waalidiintiina samiri iimaan Allah ka siiyo kulligeena Allah inaga wada siiyo wax ma garanaysaa cid ku daali ma jiro waxaan u dhimanaynaa waa 4 ruux shacabka weey marka kuwa u dhimanaysa inaad adigu ma garanaysaa ku dheesh wax suurtagal ma ninna hooyi aabo ma walba dhalo damiirku qof walba wax uu taagan yahay uu og yahay kulli dadka ka faa'iideysanaya nabadiidka ama danaha gaarka ah ee shakhsiga ah hadii mucaarad leeyahay waxyaalaha siyaasad ahaan waa lagu kala bedelay laakiin danihiisa inuu mucaarad laakiin waxaan jirin inuu ka mushtaro oo dhiig ruux bini'aadama waxaan u sheegay inay ka waantoomaan waxa sidaas ma ahayn wax dhacday oo amar Ilaahay ku timid bay ahayd kun goor baan ka xunnahay eegana ma garanaysaa ay cidii sameeysan oo ka talaabo qaadnay qaabkaas taa u ogaanaysan xagga bulshada iyo xaaladeeda wiilkii odaygii ma garanaysaa ay dhalay wiilasha kamid markii xogta aan deydeen waan baafin wiilasha ma aan aqoonin oo maamulka degmada iyo gudoomiyaha iyo hoggaanka iyo anagoo ka duuleynayaan lambaroodii baan ku raadinay xataa dadkii la socmeeyay garanin Allahu naxariistay buu geeridu waa xaq iyagu waalidkii dhalinayay waana waxdeed aan laga leexan karin saacad ninna ma horeeyo dad marka kale yaa ka mushtarayay intii oo meel kale oo hawshiisu asagoo ka gobiyo un ulaa marka taasna waxaan u sheegay bulshada ugu qaalisan ee laga dhax shaqeeyay ka deganahay dadka ugu wanaagsan ee lala shaqeeyay inuu yahay si fiican baan u wada shaqeynaa haday tahay bulshada haday tahay ma garanaysaa hay'adaha dawliga haday tahay ma garanaysaa marka waxaan u idin sheegayaa muhiimadda hadalkaygu inaanu ka xunnahay wiilashaanadii ma garanaysaa gacantaanada ku dhintay aanu ma garanaysaa inuu taxsiinayno oga xunnahay wax ku talagal iyo wax adoonimo iyo wax ilmo iyo hooyadii iyo wiil wax cadaawad ka dhaxan karta inay jirin dadka marka sida waxaan uga mushtari waxaan u sheegay inaan ahayn nabar naga dhaco nagu dhacay inuu yahay sababta keentay gaariga khaldamay ee wadada ka baxay xogtiisa haynay ee nala soo siiyay ee markii dambe kol labaad igana tiish wadada uga soo leexo kala sameeyay jay yahay khalad intaas rabay inaan wax assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh